arkaysaan yani xayawaano badan ama cayayaano badan, qaarkood uu ku nool yahay badda, qaarkood uu ku nool yahay biriga, kuwaas oo xilliyo kala duwan lasoo qabtay. qaarkood waxaa lasoo qabtay 90 sano ka hor, qaarkood waxaa lasoo qabtay 54 sano ka hor, qaarkood waxaa lasoo qabtay 15 sano ka hor. adiga midka ugu yar waxaa lasoo qabtay yani 15 sano ka hor baa lasoo qabtay midka ugu yar. inta kale xilligaas bay u dhexeeyaan. yani waa xayawaano weeyaan, yani waxaa lagu sameeyey dhacaamo lagu dardaray si uusan jirkooda u qurmin, lafahoodana u daadin, ama processkan lagu dhaho afka qalaad mummification, oo yani ka dhigaysa yani jirka noolaha ama lafaha jirkiisa mid raaga muddo badan isagoona qurmin. yani waxaan oo dhan hadda waxaa loo sameynayaa waa sidii wax looga akhrisan lahaa, wax looga faa'iidi lahaa. xitaa wax kaloo waxaa macquul ah in haddii yani cayayaankan hadda nool ee dunida ku nool hadday dabar go-aan ama dhammaadaan, si yani loogu soo qaato tusaale loo dhaho xayawaankan baa noolaa, xitaa waxaa macquul ah in ilmaheena mustaqbalka aysan fursad u helin ay arkaan mas nool oo soconaya ama ay waayaanba. yani intaas oo dhammaantood baa loo kaydinhayaa, iyo in xitaa yani laga siyaasado cilmi siday yani xayawaankan yani qaab dhismoodkooda lafaha ugu samaysan yahay oo kale. yani cilmi badan oo ka daahsan dadka yani saynisyahanada ah baa loo kaydinayaa. hadda dhammaantood waxaa arkaysiin lacago badan bay joogaan, laakiin suuqa maanta hadii la geeyo, laakiin hunguriga waxaa ka muhiimsan, cilmigaa ka muhiimsan. marka maanta waxaan jeclaystay ama aan jeclaysanay inaan la wadaagno bulshadeena ku xiran Cilmi Bahasho Channel, in yani wixii kasto markaas aan cusub oo soo siyaada aan bulshadeena